meel ma gaari karin adigoon xaqiiqada waaqicaaga aan ogeyn dhalinyaro dib isugu noqda waxa ka wada buuxdaan Facebook ma sha Allah tabarakallah waxa laga buuxaa imka meel baa la soo galay meel baa albaab noo furmay kala la dhado TikTok Soomaalida maqal TikTok وعصبه وحصو تيك توك و few seconds انت هبل ان يرو مدو او سو عدسو halkaas soo taago wad yaabas والله انت ان يرو Soomaaliyeed halka rafanaya oo doonaya inuu dhaanso wad yaabas تيك توك وادون kale Facebook iyo Snapchat iyo Twitter iyo waxa waa laga dhaafay imka waa laga baxay TikTok ba jiray imka umadiba waxaanu haysanaa marka TikTok taaqad yar baynu furanay oo khayaala taaqadaasaynu adduun kale ayaynu hamina adduun kale ayaynu ku jiraa waaqiceenna waynu ka horidnaa waaqac waxa weeye waa waaqac Soomaaliyeed waan idin sheegayaa inta wanaagsan baan idin sheegayaa واقع جرا waxa weeye horta meel walba waan tagay Sheekh Mustafa Wareysa Sheekh Ali Wareysta Africa no mar South Africa Kenya in Uganda meel badan man Africa maray masaajid walba waxa ka sii jeeda in yaro Soomaaliyeed masaajid walba waxa ka sii jeeda in yaro Soomaali Quraanka akhriyaya oo dadkii tukinaya markuu soo jeesto aan ku raado wallahi ilaahay ku barakeeyo rafacta ru'usana meel wanaagsan ayaad gaar ayaa wuxuu igu jawaaba kan u tagaa alla waa Saciid Raage oo basna ka sawiro horta Facebook aan gashan ee guurdoon baan ahay waaye halka ma qabo waan u yeeraa wuxuu ku xigsiya dawaa ninka mixraabka ku sii jiray Canada caynkee baan u gaaraa tan ka soo qaxayo ka soo ordayo Canada caynkee baan u galaa ayaa ugu xigta لكن حقيقة هديت اكيد مسابقات العالمية مسابقات القرآن تقدر قبطه تيقبطه إن إمارات كو قبطه ميل والبا إنا يرى الصوماليات أيا صوفا ليها نين بانو شاكي سنة أنو ودا صاحبنا رضا كيشكي وهي تنزانيا وحيسوي ما ده حفلة ختم القرآن كما مسابقة القرآن لحدم كن أوقف أيا قرب الصوت هاي وحول السند والبا أصبح صومالي معها وحول السند وح موقعته إنه يرى الصوماليين أهمص وهالنعمة مركن الله الشرعي يوضح كلا في إنجليز أن قوة هذا الله ميلها كون محاضرينه مثل والبو حقيرة وحول شعب الصومال شعب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن شعب الصومال وده ضدك الصوماليات وضدك أهل القرآن يوروبورن والصومالي بتكسا مريكنك كندا مين والبا الصومالي إلى أهل القرآن واقعين وكا لكن هم يقولوا معها إنه الدين تنو حنبار صنهاي إنه إنكو ومضى وحكو ترى قرى وحوية لكن هم يقولوا ورعن كان يوروبو قلا تاورتا إنه كسر قرينه إنه كسر قرينه واقع وحوية وحتكون نوشة أفريقيا أفريقيا هو مش غني السن أدوك مركز لا يقول يعني كشكينا أنا هذا كسو جنانا ده بس حدثا تي قدام بيسي عن كشكينا إن الصومال دو إنجليز كيمين و 2013 إن كاس إنجليز كيمين إنجليز كي وحوتا عربوتا شرعي إنجليز كو هايستا شيل ما هايستا كينيا نسكو نمي ورمحات صوت دونتي وحيلي عرورتي أيانو بقي عرورتي أيانو بقي عرورتي محاد قو بقي وحيلي عرورتي ولا فردامية ولا ضوف صدي ولا كحيستي دين مو ما هيو هذا وحو جوجا إنجليز كان ميل ولا مساجد باكو يالا كندا نقول نو إمام أبو مرور دي لاعي هوا كندا النظامكم المها ما ضلين حقنا أمليهد وأنا وش يا الصومالي ده وحنا كندا رجوا حقوق مرت ماله مرة لكفت ما يرجع ساوث أفريقيا وحنقولي حقوق ده وأفر كندا حقوق ده وأفر
xaqa ugu horeeya gabadha leh gabadha dumar baa leh asoo qaxino dumar oo joogay makaba waan ogahay islaanta ma sha Allah jilbaabkii cabaayada sida markay ka soo degto Toronto ay horta cabaayada lagu doo xiranaysa marka se dhowr boor isla dhacaysa way soo qurxinaysa hadhowna gaari yar bay soo qaadanaysa xaqeedii bay doonanaysa xaqi gaaradu siina ki ilaahay ma xaqa waxa lagu horeeyo waa dumarka koow xaqa labaad caruurta leh caruurta way xanaaneeyaan laakiin way fasaadiyaan nidaamku fasaadiya xaqa saddexaadna yaa leh ayda iyo doofaarada iyo bisadaha leh xaqa afaraadna ragga leh xaqa afaraad ragga leh hadduu waliba hadli karo weynanku ujeeda marka waxa ka timaada inankan ku wareele wuxuu waan la soo baxsaday sanadkii labaad baan ku noqday Afrika shaqo wanaagsan baa buu hayaa sanadkii saddexaad baan ku noqday business buu furtay sanadkii afaraad baan ku noqday waaba milyaneer inankii markaas uu su'aal buu wuxuu say Soomaaliga ku adeegayo wuxuu wareele Soomaalidu maxay uga soo qaxaysaa Afrika maxay uga soo qaxaysaa wadankoodii Ilaahay nicmaday u nicmaday wadankoodii Ilaahay khayraat dunya wal aakhirah u siiyay waay waxaanu baahanay marka inaynu nadariyada bedelo qof wal oo wadanka wax ku bartay ama Yurub wax ku bartay hamigiisu waa inuu noqdo hadafkiisu waa inuu noqdo wadankii wax taro